mana garan karo wax nabad ah waxaan nabad ahayn oo la taageeri karo ama laga shaqeyn karo waxa ugu qaalisan ee ugu muhiimsan ee u baahan tahay ummadda in la tuso waa nabadgelyada weeyaan. Cergaabo waa hal qof waa hal magaalo dunida dad kala duwan baa wada nool laakiin Cergaabo waa hal qoyskaas inay nabadaas wada gaadho baan doonaynaa. Walaadana runtii hal qof ayaa bilaaba boqolaana waa soo afjaraan nabadana hal ibriqsi bay ku jabtaa boqolaal sanana way qaadataa inay dib u soo xidhato. Waxa halkan caawa isugu yimi qaar kamid ah ama labeentii aqoonyahanka gobolka Sanaag oo dhameystiran darafyadiisii oo dhan waxa uu kulankayga daaran yahay inaan taageerno oo muujino taageeradan u hayno baaqi nabadeynta magaalada Cergaabo madaxweynuhu iyo gogashii madaxweynuhu dhigay sidoo kale inaan taageerno oo muujino waayeelkii ka hadlay baran reer Cergaabo nabadeynta iyo madaxa baaqa madaxweynaha taageeray inaan anaguna muujino inaan taageersanahay kana shaqeynano dad badan oo nabadda iyo ku hawlan ay jiraan inaan muujino ayaa arrinteedu daaran tahay. Hadafkuna wuxuu yahay iyo mabda uu ku saleysan yahay baaqa iyo gogosh la dhigay iyo shaqada la wada. Cergaabo waa hal qof waa hal magaalo. Dadka reer Cergaabo waa dad wadada kala maarmin wadada ay tahay nabadintooda laga shaqeeyo islaaxooda laga shaqeeyo. Waxaanu soo dhaweynaynaa baaqi madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo aqbalaadii waayeelka dhaqanka iyo gurtida baran. Waxaan doonaynaa in Cergaabo nabad noqoto waxaan doonaynaa dadkiina wada noolaadaan in Cergaabo lagu soo noqdo in hawshaas hab nabada lagu dhameeyo gogosha nabadeed ee madaxweynuhu fidiyayna la isugu yimaado. Waxaan isugu nimo shirkaygu daaran yahay inaanu taageerno gogashii nabadeed uu madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu ku baaqay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Cergaabo anagoo ah jiilkii aqoonyahanka ahaa iyo dadkii waxgaradka ahaa aanan doonayn inay dadkii wanaagsanaa aanay dib isku dhigin dadkii wanaagsanaa hore yimaadaan oo nabadda la xoojiyo oo dadka reer Cergaabo waa hal qoys dunida dad kala duwan baa wada nool laakiin Cergaabo waa hal qoyskaas inay nabadaas wada gaadho baan doonaynaa. waayo waxa ugu wanaagsan ee aanu maanta iskugu nimi waxa weeye dadka in la islaaxiyo. waxaan bulshadeena la wadaagana inay ishor keenaan oo nabadda iyagu hormuud u noqdaan soo dhaweeyaan waayo reer Sanaag ama reer Cergaabo waa dad qoysa oo dad wada ehela. Walaadana runtii hal qof ayaa bilaaba boqolaana waa soo afjaraan nabadana hal ibriqsi bay ku jabtaa boqolaal sanana way qaadataa inay dib u soo xidhato. waxaanu ka aqoonyahan ahaan iyo ka dhalinyar ahaanba muxuu ahaayay door weyn ku yeelanaynaa inaanu isu keenno dadka oo doorkii 30 sano ka hor maaragtay ragga qaar ku suntanaayeen inaan qaadano oo aan muujino maaragtay dadka walaalaha halka wada degan in la isu keeno la mideeyo maaragtay Cergaabo sidii ahaan jirtay lagu soo celiyo. Cergaabo wixii ka dhacay way saameeyeen dhaqaale ahaan bay u saameeyeen horumar ahaan bay u saameeyeen wixii oo dhan in dib loo habeeyo oo dib gacmaha la isku qabsado oo wixii dhacay la ilaabo. waan taageersanahay baaqaas waanu la shaqeynaa cid kasta oo nabad iyo wada deganaan iyo xasilooni la rabto gobolka Sanaag. muddo dheer buu gobolku colaad iyo waxa weeye aanooyin badan iyo waxa weeye dagaalo ku soo dhex jiray taasoo waxa weeye dib u dhac iyo kala fogaan badan bulshada ku keentay. tanina waxaan rajeynaynaa insha Allah gogasha la dhigay madaxweynuhu fidiyay iyo dhinac kalena ay soo dhaweeyeen inay ku dhamaato nabadgelyadii. waxaan taageersanahay oo ay tahay in la taageero baaqa madaxweynaha ee nabadgelyada gobolka Sanaag ama gaar ahaan Cergaabo. runtii muddo dheer baa ka soo wareegtay intii shaqaaqooyinka iyo dagaaladu ay ka dhaceen gobolka Sanaag. waxaan filayay runtii in hore wax loo qabto balse marnaba habsan ma jiro haddii waxa weeye nimanka lagu dhaqaaqo. arrintaas madaxweynuhu ku dhawaaqay waxa weeye anagoo dhalinyaro ah aqoonyahan ah waa taageersanahay mana garan karo wax nabad ah waxaan nabad ahayn oo la taageeri karo ama laga shaqeyn karo. waxa ugu qaalisan ee ugu muhiimsan ee u baahan tahay ummadda in la tuso waa nabadgelyada weeyaan. ninka aqoonyahanka ninka dhalinyarada ah waxa uu hormuud ka noqon karaa waa nabadgelyada.
waxa weeyaan fitnada iyo mashaakilka iyo dilka iyo dhimashadu waxaan dhib ahayn ma soo kordhinayso reer Sanaagna ha ogaadeen haddii dagaal la dhacaan 10 sano hadduu socdo iyo hadduu waxa weeye waqti dheer ba socdaba waa laga heshiinaya maalin maamaha kamid inta nool ba heshiinaysa marka intii waqti dheer ay nagu qaadan lahayd khasaaro badan aynu geli lahayn maanta arrinta in la qaato ayaa muhiim ah tijaabi nasiibkaaga oo ka qayb qaado qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Bluecom ugu talagashay macaamiisheeda cusub sanadkan wareeji ku guulayso qiimo dhimis u dhaxaysa 5 ilaa 30% oo hel internet xawaarihiisu sareeyo kaliya taabo linkiga moobilkaaga lagu soo diray maxaad sugaysaa wareeji ku guulayso internet xawaarihiisu sareeyo